saacadihii ugu dambeeyay waxa aad loo hadal hayay samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ka fadhiistay heesta calanka Soomaaliland xilli uu xalay ka qayb galayay munaasabad lagu soo bandhigay buugu qoray Abwaan Maxamed Warsame Hadraawi telefishinka Hon Cable oo la kulmay ayaa wax ka weydiiyay sababaha uu uga fadhiistay iyo sidoo kale hadal haynta ku aadan in Cabdimaalik Muuse Coldoon aanu aaminsanayn calanka Soomaaliland daawadayaal waxa garabkayga taagan Cabdimaalik Muuse Coldoon Cabdimaalik waxaad ka qayb gashay xalay munaasabadii lagu soo bandhigay buugii uu qoray Abwaan Hadraawi waxa jiray sawir baraha bulshada wareegaya oo laga qaaday xilli la qaaday heesta calanka Soomaaliland oo aad fadhiday dadka kalena ay taagnaayeen sababta Cabdimaalik uga fadhiistay maxay tahay aad ma santaa marka hore waxa kale oo iyaduna mudan in la isweydiiyo sababta dadku u kaceen maxay tahay laakiin haddii aan ka jawaabo weydiintaada ama aan ka warceliyo marka ugu horeysa maadaama aan dad islaam nahay waxa weeye wax kasto aynu qabanayno waa inaan u eegna diinteena islaamka laakiin aynaan u eegin dadku saasay sameeyeen sidaasaan sameynaya waxa weeye arrinka runtii yani muxuu ahaa fahan aan ka fahmay diinteena islaamka ayaan ku dhaqma diinteena islaamka ama diinteena islaamka waxaan ka fahmay in يعني محاها قنوتك iyo qiyaamka khushuucu ku jiro inuu ilaahay iska leeyahay sababta quraanka ilaahay wuxuu ku xusay baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim xaafidu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qaanitiin qumu lillahi qaanitiin qunuutku waa istaaga dheer ee khushuuca iyo tadallulka leh ilaahay baan iska leh marka waxaan niri yani maro ama cid kale makhluuq ma mudna in muxuu ahaay de maqaamka la dejiyo marka cabsi aan nafteedu uga baqayay in aan ku dhaco yani muxuu ahaay waxyaabihii ilaahay iga reebay ayaan muxuu ahaay ayaga taxadar bay ahayd marka waa arin la xiriira muxuu ahaay diinta islaamka waana runtii arin ay bulshadu ay tahay inay ku baraarugaan ma garanayo meel ay ka keeneen yani muxuu ahaay cid sheekh u fatwooday oo yiri muxuu ahaay loo istaago ma garanayo culumeenu leenahay ma garanayo muxuu ahaay xeerarkan wadciga basharku sameysteen in badan oo kamid aanay banaanayn yani ma jirto xitaa meel muxuu ahaay ku waajibinaysa dadku inay muxuu ahaay ay intisaay yiraahdaan ay maanta oo dhan muxuu ahaay ay u istaagaan dastuurka uga jeeda طبعا dastuurku waa qaanuun qawaaniintu lafteeda dastuurka laftiisa kuma jirto يعني قوانين كلام محل السماية أو كشرت سومالان كم شرت إن اللي هذا قاب كاس اللو يستاجو سبلها اللو يستاجو قاب كنوع عسى اللو يستاجو خضوع أي ما هتدلل كنوع عسى الله سماية مشران لكن واحد شردت كله أو يجونا سويدينية Cabdimaalik sababta uu calanka Soomaaliland uga fadhiistay macnaheedu waxa weeye inaanu aaminsaneyn jiritaanka calanka Soomaaliland taa maxad kale deedo oo uu arkay in xiniin calanka kale haduu jiri lahaa uu istaagi lahaa may waa soo kamid muxuu ahaa calamaantu يعني محاها إلهي درتي بان وحنا إلهي درتي بان وحوش علاننا ما شرتوا يعني محاها رتي قدرتك هالك كاجي مال قاوم بكاجين لكن وحوي واسو كميد وحوي وحي كاهد منطلق بي كاهد وحن كدولي أرن ديميد من كدولي لكن ديجان محاها ضل وجارة ما يهين رتي وحوي قرن ماذا الأشياء يا محيتها قرن ماذا حكومي بسنتين دين تلا يلاليو ما حال لو استاغ ما حال لو موجين كرا انو مدن حتى قفك قرننimada ilaalinaya waa qofka umada diintooda ku baraarujinay marka ma jirin shimaaliyow in ay la xiriido yani muxuu ahaa halkan iyo halkan kala duwanaansho aad u mahadsantahay Cabdimaalik ugu dambeyn su'aal kaftan doonay inaan ku weydiiyo inta badan marka aad labiskaaga waxa la socdo ciidamadan oo mar walba qorta kugu dooban dad badan way isweydiinayaan sababta ciidamadan uu Cabdimaalik u qaaday waliba intii ka dambeysay xarigaaga ayaad aad u qaadatay sababtu maxay tahay وروتي عمامدني maaha mid igu cusub aniga dadku waxay u fiirsadeen xarigayga kadib oo waxa weeye maalinkii aan jeel ka soo baxay waan sitay gudaha xabsigana waan ku sitay oo ardaydii iyo maxaabiistii muxuu ahaa aan meesha wada joognay cimaamada way igu arki jireen marka cimaamadan yani waxa jira sawirro badan iyo muuqaalo badan oo hore yani muxuu ahaa ana hayo waligay waan jeclaa muxuu ahaa cimaamadan runtii maaha mid aniga ii gaara waxa weeye waxay noqotay sumad caalami ah oo yani muxuu ahaay dad yow badan oo adduunka ay gashadaan oo way ka tagtay muxuu ahaay meel gaar ah way ka tagtay markaas yani jacaylan sumadan caalamiga ah ee micnaha sameynaysa ayaan u gashadaa Axmed Shimaali Hon Cable TV Hargeysa